السلام عليكم كنينيال عادة دقن يا قليمو وحياب اللوجيا إني وناتشيان أودا رجعني سؤاش soo noqnoqota ayaa ah cuntadu ma ka qayb qaadan kartaa kordhinta shaqada iyo awoodda xubinka ragga raadinta waxa u wanaagsan awoodda ninnimada ayaa korortay waayahan dambe sababo dhowr ah awgood sababaha qaar waxaa la sheegaa inay yihiin fuxshiga oo batay dumarka oo asturnaantu ay ku yaraatay social media oo qayb weyn ka qaatay soo bandhigidda xumaantaas iyo dadka qaar oo cudurro ay u keeneen inay dhibaatadaasi wajahaan muuqaalkeenna maanta ayaan kugula wadaagi doonaa 10 cunto oo u wanaagsan shaqaynta xubinka taranka ee ragga ka hor muuqaalka haddii ay tahay markii kugu horeysay janaalka aadna danaynayso warbixinada caynkani oo kale ah fadlan like dheh subscribe-na saar janaalka gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh aan bilaawi fiidiyowga haddii ay jirto inaad xiisaynayso barnaamijyo la xiriira dhacdooyinka caafimaadka ee dunida ka yaabiyey fadlan qaybta kore ayay kaaga soo baxayaan halkaasi ka daabo oo wax ka kororso muuqaalkana like saar si uu dad badani u gaaro cunnooyinka ragannimada sare u qaada waa kuwa xaddi badan balse mid kastoo ka mid ah waxay kaa caawinaysaa qayb ka mid ah sida uu horumar u samayn lahaa xubinka taranka ee ragga sida wanaagsan waa isku cunidda cuntooyinkaasi si isku xidhan oo ka dhigaysa sare kac weyn oo uu ninka raggaahi u riyaaqo ka hor cunnooyinka ma jiraan xaddi ama qiyaas laga cuni karo oo sheegaysa inay humaanti tahay intaasi haddaad ka isticmaasho in wax walba ay dhammaanayaan laakiin ka cun intaa awooddo kuna dadaal cuntooyinkaasi si aad u hesho caafimaad wanaagsan iyo xubin taran oo xooggan cuntada koowaad qaraha waa miro macaan oo saafi ah lagana helo waxyaabaha ku jira dawooyinka loo isticmaalo awooddirida xubinka taranka ee ragga ama hamidyarida sida ay sheegaan cilmibaarisada qaruhu keliya jamaaca wax uma taro waxaa kaloo jira inuu u roon yahay maqaarka qanjirka ragga ee prostate-ka iyo si guud caafimaadka qofka maadaama uu ka kooban yahay badankiis biyo iyo waxyaabo kale oo ka hortaga sumumidda jirka cuntada labaad kalluunka qolofka adag leh ama shellfish nooca loo yaqaan kalluunka afka qalaad noocan malayga waxaa loo yaqaanaa afka qalaad oysters soomaali ahaan waxaa wanaagsan in la weydiiyo kalluumaysatada si ay noogu sheegaan waxa waddanka looga yaqaan malaygan waxa uu sare u qaadaa dhacaanka ragga ee loo yaqaano testosteroonka kaas oo ku caawiya gogosha ragga malaygaani adag waxaa ku jira sinki oo murqaha anfacda iyo nafaqooyin kale oo waxtar u leh jidhka bil'aadamka sida wacan waa in si fiican loo kariyaa malayga maadaama uu adag yahay markuu bislaado ayuu waxtar fiican leeyahay cuntada saddexaad shaaha ama kafeega labadan mid kastoo ka mid a waxa uu leeyahay waxtar caafimaad korna u qaada ama awood siiya nafta maalinkaas inta badan waxay sheegaan cilmibaarisadu in dareen degdega ay caawiso maaddo laga helo kafeega oo loo yaqaano kafayiin sidaa daraaddeed ku dadaal kafeega ama shaaha cuntada afaraad shukulaatada madow shukulaatadu waa mid kor u qaada tamarta qofka waxa ay u leedahay saamayn wanaagsan caafimaadka qaybaha kala duwan ee jidhka shukulaatada nooca madowga ah waxa kale ee ku jira ayaa ah nafaqooyin iyo macmacaan waxtar u leh socodka dhiigga iyo yaraynta dhiigkarka dhinaca
ragannimada. waxaa jira shay laga helo oo lagu magacaabo nitric oxide kaas oo u wanaagsan kicila'aanta xubinka ama shahwo degdega. cuntada shanaad, looska. looska waxa uu ka mid yahay miraha leh borotiinka badan, sidoo kale waxa uu leeyahay waxyaabo ku caawiya jirka inuu soo saaro nitric oxide-ka, waxaana loo yaqaan afka qalaad waxyaabahaas amino acids. looska waxyaabaha kale ee laga helo ayaa ah vitamins sida midka loo yaqaano vitamin A iyo folic acid lagu daray hadhuudh ama diir, oo intooduba faa'iido u leh ragannimada iyo caafimaadka si guud. hal digniin: habbatan xaddiga looska maxaa yeelay waxa ka buuxa kalori badan, kuumana wanaagsana wax aan tankaaga ahayn inaad isticmaashid. waxaa jira barnaamijyo caafimaad oo aan ka diyaariyey cuntooyinka kala duwan. qaybta kore ayaad ka arkaysaa midka aad u aragtid inuu kugu taxalluqo daawo oo wax ka faa'id. hana iloob inaad laag saarto muuqaalka si dad badani uu u gaaro ayna wax uga faa'iidaan. cuntada nuuca lixaad, canabka. canabku waa miro aad u wanaagsan oo leh nafaqo fiican. waxaad ka dhigan kartaa canabka biyo, waxuuna kor u qaadayaa in la soo saaro nitric oxide badan, taas oo ka qayb qaadanaysa xoojinta xubinka iyo awoodda ragannimo. cuntada nuuca toddobaad, toonta. xinjiraha xira xididada dhiigga waxa ay keenaan ninka inay ka dhibaateeyaan gogosha xilliga lagu jiro. sidaa daraaddeed, toontu waxay furfurtaa xinjiraha dhiigga, taas oo keenaysa in socodka dhiigga uu hagaago. sidoo kale, toontu waxay u wanaagsan tahay xanuunnada wadnaha qaarkood iyo si guud caafimaadkaba. cunnada nuuca siddeedaad, malayga salmon loo yaqaano. sidaan uga hadlay barnaamijkii hore ee ku saabsanaa macaanka iyo cuntada u wanaagsan, malayga salmon waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah. waxaa laga helaa dufanka nuuca loo yaqaan omega 3 fatty acid, kaas oo kicinaya soo saaridda jirka nitric oxide oo ka qayb qaadata awoodda ragannimada iyo yaraynta dhiigkarka. 8 mar oo aad usbuucii cunto waa wax wanaagsan, iyo sidoo kale inaad u cunto sidii aad awooddo. malaygan waa mid waxtar fiican leh. cunnada nuuca sagaalaad, cunnada cagaaran. qudaartu si guud waa mid u wanaagsan caafimaadka, si gaar ah kicinta nitric oxide-ka dartiis. qudaartu waxay u fiican tahay awoodda ragga dhanka sariirta iyo jacaylka markii lagu jiro. qudaarta waxa guud ee caafimaadka ay ugu wanaagsan tahay ayaa ah in laga helo fitamiino, macdan iyo dufanka nuuca ugu fiican ee omega 3 fatty acid. cunnada tobnaad, saliid saytuunka. saliidan waa mid wacan waxyaabaha ay ka kooban tahay dartood. sidoo kale waa mid sare u qaada dhacaanka ragga ee loo yaqaan testosteronka, kaas oo si wanaagsan uga qayb qaata awoodda iyo axwaasha ragga ee lamaantiisa. waa saliid aan lahayn dufan waxyeello geysta, sidoo kale yaraysa kolestaroolka jirka iyo dhibaatooyinka kale ee caafimaad. muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar. hana iloobin inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkana aad furato. commentiskana iigu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale. fiidiyowga inoo xiga insha Allah.